يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير. بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولليال مرلبات كسو دوادا برنامج كتحانينوها الدروستي رمضانك يعني gaar ahaan asxaabtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam diiradda ku saareynay noloshii asxaabta iyo saxaabi walbo intii markaas aan awoodno taariikhis inaan ka dhigayno mid kooban aynu qof walba oo naga mid ah markuu barnaamijkan arko ama taariikhda uu dhageysto uu faa'iido ka qaato. ujeedkanaga waa sidaas, ilaahayna san ka rajeynayna. sidaa daraaddeed walaalayaal, saxaabiga aynu diiradda saarayno maanta ama aan qaabal dhigay doono insha allahu tacaala taariikhdiisa waa saxaabi jaliil ah. asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwooda marka hore soo islaamu ka mid yahay waxaa la yidhaahdaa طufayl ibn camr addawsi. طufayl bin camr addawsi wuxuu ahaa sayid min qabiilati daws, nabadoon ama ugaas qabiilada daws la yidhaahdo ayuu ka mid ahaa fi ljaahiliya. washariifu min ashraafi alcarab, qof sharaf ku leh carabti markaas jirtay oo la qiimeeyo ka mid ahaa. طufayl ibn camr addawsi wuxuu ahaa nin marka laga sheekeynayo ammaan, marka la ammaana la yidhaahdo gurigiisa ama meesha uu ku nool yahay xaafadiisa weligii dabkiisa lama damin. taasi waxay u dhacaysaa inuu ahaa qof deeqsi ah. waxaa kaloo leeyahay walaa yuusadu lahu baabun amaama taariq, albaabkiisa cid usoo habeenkii kusoo guureysay ama soo gargaraacday weligii lagama furi waaye. waxaa leeyahay yuطcimu ljaa'ic wayu'min alkhaa'if wayujiiru lmustajiir. wuxuu ahaa mid qofka baahan waxuu uga baahan yahay siiyo, ama cunto hadday noqon lahayd waxuu markaas qofka u baahan inuu siiyo ee baahida ka tiri karo. wuxuu ahaa qofka markaas magangelyo doonka ah ee cabsi iyo kurbo ay hayso inuu ka furo ama ka badbaadiyo isku dayo. markii la ammaanayo oo taariikhs ama laga sheekeynayo shakhsiyadiisa wuxuu ahaa baa layidhi qof adiib ah. adiib waxaa la yidhahdaa cilmi adibka ama ku takhasusay oo sugaanyahan ah. qof ariib ahoo labiibun wa shaacirun bay dhahaan carabta markii qofka aad oo maalinta ay ka badinayaan. qof caaqil oo nergarad ah. intaa waxaa usii dheerayd saxaabigan jaliilka ah abwaannimada iyo maaragtay sugaanta uu markaas uu curiyo inuu ahaa qof dareenkiisu meel dheer wax ka dareemo. asagaa markaas ka sheekeynayo intuu islaamka soo gelin ama islaamka qaadanin wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ama subaxyada ka mid aan kasoo baxay magaaladii tihaame ahayd, waxaana usoo kacay ilaa makaan soo aaduu leeyahay. markaan magaalada tihaame kasoo baxay oo maka soo galay waxaan la kulmay dagaal ama loolan u dhexeeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kufaaru quraysh. nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo raggaas oo dagaalkun uu yahay dagaal dahsoon oo aan maaragtay nabiga calayhi salaatu wuxuu ku mintidaya ama uu ku dadaalayaa dadku inay asnaamta iyo cibaadadaas ay maaragtay daaquudka ay ku xireen inay kasoo go-aan rabbi subxaanahu watacala cibaadada maaragtay u baraxtiraan. kufaaru quraysh intooda badan ayakana waxay ku dadaalayaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam caqabaad iyo wax diidan arrintaas uu ku dhaqaaqayo dhan inay hor ama jidgooyo ku sameeyaan. qof walba oo marka waxaa jirtay xajka inay gaalada imaan jireen ama kacbada inay usoo xajin jireen. asnaam 360 sano baa taalaal magaalada maaragtay
مكة جارهان كعبة الاحتال صدح راس بقول يلحنك يقولي بزيادة dadku marka intaas intay u maadaan waxaan u gowrac jireen dawaafi jireen marka ninka la yiraahdo Tufayl Amr ad-Daws saxaabiga jaliilka ah inta soo islaamin dadku wuxuu hamigaas uu ku jiray sidoo soo liitabarak asnaam al-Kaaba inuu Kaabada asnaamteeda soo barakaysto ayuu yimid dagaalkan uusan ujeedkiisa meel uu ka socdo iyo meel uu ka socon garan ayuu soo dhaxgal soo dhaxtiimani arkay asaga marka sheekada wuxuu leeyahay waan yaaba ونو نمكان صحيح ونو محمد عليه السلام ليه داعي بانه dadka khayrkan ugu yeeraya kufaar qurayshna ilayhiin iska jir marka aan dhaxtaaganahay ayaan go'aan gaaro leey marka bal aan ku hormarno sidii kufaar quraysh loolankooda ugu shaqeynay kufaar quraysh qof alaala qofkii markaas xajka yimaado ama kacbada yimaado dadku meel bay teendooyin bay xiran jireen meel ay fadhiisan jireen saada xajka loo maaratay loo kala degan yahay markii uu soo galo nabiga kaleey salaatu salaam ku dhaxwaro dhijir man yaawini wa man yansuruna hatta uballigh risalati rabbi wa lahu aljanna wariyaay gargaarayo wariyaay hilinayo aan anigana maaratay u ballan qaada janno oo ugu yabaha ilaahi subhanahu wa ta'ala yabohis ilaahna balanta kama baxee kufaar qurayshna waxay dhijireen ma midka annaka in ka naqaano waa maaratay waa waalan yahay waa saaxir waa nin umada maaragtay kala kaxeeyo dib aan uga imaan doonaa waxa si toos ah oo shaqeyn doona Tufayl Amr ad-Daws wuxuu leeyahay marka aan magaalada soo galay odayaashii Quraysh ragii ugu weyn baa yimid waa Abu Jahl ugu horeeyo Amr ibn Hisham Utba iyo Shayba ragii aan midna ka iyo Walid ibn Mughira ragii oo maaragtay raga maaragtay madaxda ugu sareysay marka ay timid wuxuu leeyahay farahabuni akram at-tarhib soo dhaweyn tii ugu sareysay isaareen waxa inta ay dheerad bulay saxaabiga jaliilka ah waxay u dhaheen talan ku sinina naga dhageyso talada ay siiyeen maxay tahay waxay dhaheen waxa soo baxay nin nabinimo sheeganayo oo ataqaanid oo alla ilaahay ka soo jeedo Abd Muttalib waa nin reer Bani Hashima laakiin arrinkiisu uu dadkuna waalay waxay dhaheen yufarriqu bayna al-abi wal-walad aabba iyo wiilkiisu kala kaxeenaya waxa inta uu sidareen qad afsada amrana arrinka naga uu fasahaadiyay bal ay ka mufsidiina ala innahum hum muslimu ilaahi subhanahu wa ta'ala laha ومزق شملتنا وشتت جماعتنا isku xiranka naga iyo jamaacadki iyo dadka isku xirnaabo kala daray bay dhaheen Tufaylow haduu ninka kula hadlo qawluhu ka-sihr hadalkiisa waa sixir oo kale sidii birqabatada ama birlabato waxa la yiraahdo ayuu kugu dhagayaa markiiba oo qof walba jeclaysanay oo waxa la yiraahdaa gaaladu aad bay ula yaabanay qaarkood waxay dhihi jireen nabiga kaleey salaatu waa majnuun jeer ay u soo direen nin dadka ilaajiyo oo waxay ninkan nin dadka maartay waalan oo maskaxda wax ka gaareen wax ku akhriyo ama ilaajka ku takhasusay ayaa maalmaha kamid nabiga u yimid kaleey salaatu wasalaam asagoo ujeedkiisu ay tahay inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam caawiyo waa soo hadalka asaga markaas ama maqsadkiisa ama ujeedkiisu ahaa markuu u yimid nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu ku yiri Muhammad way ma dhahayaan nabinimo ma qirsano waxaan maqlay inaad xogaa isku dhaxdaatay hadalkaaga uu control-layn waxaan rabaa inaan talo iyo tusaalo aan maar isla fiiriyo si aan qiimeeyo bal waxa tahay ee bal hadal aan ku dhageystay Allahu akbar nabigana kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa daaciyan ila Allah mid dadka khayrka u yaro oo afkiisa 24 saacadood uu u furan yahay inuu umada khayrka u soo jiito nabi kaleey salaatu wasalaam intuu hadalka bilaabin حمدلذي أتقانين أيكون بالله صلوات الله وسلام عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل إلا دماتك النبي عليه الصلاة والسلام وجي صلوات الله وسلام عليه نيك مركو أنت دقيستي ودكتيس أنت كل عضي أي حير والله إله ما كل أرتيه أدي والك الفويدين بل كلمات كعد استعمال شيء معاني بكفديان وكلمات هذا الله جملة هي معنى كفديو انت ما نينك تاوتي إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري نينك إنه ماشي إسلام كقات إنه واحد داوي ويمت بل أساقوا النبي عليه الصلاة والسلام أساقوا الداوي ماشي ونكو إسلام مركو حيدي جن مركو قفك لها الله النبي عليه الصلاة والسلام قوله كالسحر هذا الكسوة سحر كله سامين بقفك يرات راع وكسمينيا مركو ضفيل عمرو حيكون لهن نخش أو عن كاقع عبسلنا ما قد حل بنا
waxa ina u dhacay inay kugu dhacaan baan kaaga cabsanayna in ninkan ka digtoono Dufayl baa sheekeynay ibn Amr ad-Dawsi wuxuu leeyahay go'aan baan gaaray waxaan go'aan ku gaaray ala alla aqtariba minhu inaan u dhawaaninba oo musaafo iyo baaxad la aan ka fogaado nabiga kaleey salaatu wasalaam bal aan balla hadlin bal inta waxa ii dheereed wuxuu leeyahay sadadtu udunaya biqutnin li alla asma' ma yaqulu muhammada dhagayga waxaan ku cufaystay suuf sayba dhagteed ugu dhicin محمد يوحى وشيغي aniga oo taa ku socdo oo hadafkaygu saayahay ayaan ka soo tagoyir maalinkii baan ragaas wada kulanay arimahan iyo talada siiyeen habeenkii baan ku seexday markii waaga bariyay ayaan iru ujeedka u timid magaalada Makka muxuu ahaa inaad soo barakaysa salaamtii meesha taalo waxaan u soo gowracay kacada soo galu leeyahay inaan dawaafaan rabay misana subaxiba qofkii ugu horeeyay ee aan kacbada ku wada kulanay wuxuu ahaa Muhammad wa Nabi Muhammad alayhi salaam ka wadaay wuxuu leeyahay marka arkay waxyaalaha soo jiito wax kamid ahayd wuxuu tukanayaa salaatan ghayra salaatina salaad aan ahayn salaad aan tukun jirnay cibaadatan ghayra cibaadatina cibaado aan ahayn tii aan naqaanay bal wuxuu leeyahay mandarkiisa iyo sidoo u sujuudayo iyo sidoo u rukuucayo iyo wuxuu yiraahdaa hazatni cibaadatuhu waxa igilgishay عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لا النبي عابد بو إله عابد سبحانه وتعالى مرة عباده استاغنا نفتي سوء له بجر صلوات الله والسلام عليه واحد قرأ الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة ورنيسي إلهي وحن كوري رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي ذنبك يا هوري قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما ذنبك يا هوري كذا بإله كودافي مياذا نهين مد نسطو نفتي سو راح يا خوغا بل سيده تلات كسو انت كبدل النبي محمد كجوابي افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا ميان هانين اضون هدو ربي ونمعي دنبي سهر كان دنبه ودافي ميان هانين اضون ربي امهديو نعم بلى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل صلوات الله وسلامه عليه النبي وحوا صلوات الله وسلامه عباده نقط احد من الصحابه حليه هبين كم النبي قيام الليل واستاج جري هبين كم النبي اصو عباده وتاغنا صلاه وتاغ قيام الليل اما اسك عباده سنه ايان كو دبا خيرت جير ان همي وحن ان صلاه دبك غوست سوره البقره ركعه كو دمي نساء العمر انت جزء تانا واد قرنس ان كشكين واي النبي marka wuxuu qof shakhsi خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه إلهي سبحانه وتعالى هدو مر وجيستنا نفتي سوء إلوه لعلك باخع نفسك إله وسيلة نفتض حد حتى أوها لاقيت أن أمضر الإسلام نغضان سكسبعت النبي عليه الصلاة والسلام عبادي السيح له وإقل قش بل وحار كانوا أسوء دواني أنا أسوء دواني وجيت كيغن وصل أهينا ودواد صلوات الله وسلامه عليه مركي عن إمت وأنا كان أسوء دواني أي أسلحة ضير عني مركي وحان أسلوه ثكلتك أمك يا طفيلو هو يدك ودي نينك كني وانينك ولا مده لبي وحتى نين مارت سوغاني هني نين عاقله نين جراده نين سلطان امدو يقيميس كلا يقانو حمها هي سمده هي حمها كلا يقانو ما هكا خلد من وين باتها انا صوف اسكو عفيسي نينك وعد تورك وهيسو كدليس ماله haddii wuxuu sheegay wanaagtaana ka qaado haddii taana taragtu ka tag taaba isoo yiri markaas nabi kaleey salaatu wasalaam soo abaaray markuu salaada ka baxay salaamu alaykum salaam alaykum guriga si dhaqaaqay ayaan ku yiri ya muhammadow wa nabi muhammad kaleey salaatu wasalaam idagaysa inuu yiri inna qawmaka qad tulka way afsiyan jar an sacsacay on doqon noqdo dhigi ka cufayst قالوا لي كذا وكذا وكذا سدا يقول هن عبد سدا يقول لينا waxay keentay inaan sida xoolihi islaaliyo warniyo dhageys waxaadis faarid calay amrak arinta ay soo bandhig haday aan facdana ka qaatay hadii aan fiiceysana ka tagay nabiga wuxuu yiri marhaban soo dhaw nabiga kaleey salaatu wasalaam isla markiiba suurada gaagaaban oo quraan kamid ay ku dul akhriyay suurada ikhlaas iyo سورة فلق iyo wacdi yarba isku diray salawaatu Allah wa salaam alayhi
بفضل الله وبرحمته إلهي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء إله عدو دون أساقه نونيو عدو دوننا رب سبحانه وتعالى أساقه ماركتي دميو إله لابس مركي وحو أكلا بندلي أم أكلا دلاعي إنو هدايدي يهنونكي إله سبحانه وتعالى قليو ضفيل من عمرو الدوسي وجدكي سوها مقالة تهاما وكسر إنه كسبحه وما كأي ماذا سوء أصنام يبلايو يوحى لاقون يشركي يطغيان يمارة إله سبحانه وعاسنتيسا لكفري وسعدي لكن إله سبحانه وتعالى ومقلب القلوب الله يا قلبي من هذا عنس كدران يقلبها كيف يشاء صودا ربي وقديا وقلبي سمرك أبدلي إنه الإسلام كقاته وحولي ماشي بانكو أشاتك عنك وأصول تاج رسول صلوات الله وسلامه عليه ماشي بان شهادة وقاتي نبي أدب وغفر صلوات الله وسلامه عليه إسلام كالضفيل إن عمرو الدوسي محايلي وانين قرادة وانين دتك مارتي دتك أي كسو هرتان أو لا قيمة أو شرفت يا كرامة ومدك كده حله أو أدلو عزيوها إسلام كي بالضفيل وعمرو أسكش كان وحولي هي نبي عليه الصلاة والسلام يعني مدلة جوي جار عن حقا وحن عبادة كوها جستو أما كنت كنكره يا قرآن يغفرا أن كبرت النبي عليه الصلاة والسلام مركز ساعة برتي حقا عن برتي أي النبي قال له ذيري صلوات الله وسلامه عليه وحنقول يا رسول الله أنا نين مطيعة أولا أضيعه أولا كراميه أولا شرفه أولا عزيانه وحن دنيا نم عدن يخير كان أتحق شيء يعني عيانتا ما أنت كل جو أن كاركي والله تركي هدان وهاي نن مارة النبضونة نن وحجران هدان هاي نم عدن مدة كقطنته لأن والله العظيم إسلامك هو نعمة وكفى بها النعمة إسلامك هو نعمة وكفى بها النعمة أيضا أنا مظن إلهي إنه كافي أيضا نوقفنا ولا لا أما ولا شيء إلهي سبحانه وتعالى إسلام مكسي أم بيد إلهي سبحانه وتعالى يا رسول شو الله سبحانه وتعالى أدونك أصدري والله إنه عاص مهني قاركود أولاد دود وحن كوضع من النبينا النوح لقصب بالله النبي النوح عليه حاس كيسي أيا كفري يا قال لي لصوب بررتي كود لي اللي دعان كيسها أيا قال نقضي ومركو هلاقي بيها إمادين وكل لا عاصم اليوم أبا ما أنت مالوه بعد ماله أي صرع ويرميا بورتا سنو عريا وإلهي وعظ إلهي وحد قبل لقادين أهلك إبد بادنيس محالوير إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إلك هذا كمناه بل عمل أنا وناك سنين بليمت في سورة تحريم الله سبحانه وتعالى هي شكي إني حاسك سنة بين السي بل فيري نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أيا إلهي سبحانه وتعالى أولاد ديسي قيب كمده يحاسكيسي إسلام لماذا إلهي كقضية نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبيه دلي وحتى مركو أنت أدعي كد ذلك ولقى عليي إلهي سبحانه وتعالى كلمة وافجين بأديك السيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلام عليه عمه أبي طالب والله قعب سنجري وعد ما دعوة ما أنت الدور كقعت الدور وين بوها وحو إلهي سبحانه وتعالى موافجين إنه كلمة التوحيد كقعت الدون كان سوء قبض بهذا إلهنا سبحانه وتعالى أنيقا يا أديك إن لمده وحو إنه قلق يستي إنه نعم كاسم نحق ليه هذا من فضل ربنا إلهي نوح في اليوم بالوك وإله الأغيى إن تكوك شكر ست يا ما يمنع كفر ست سيدوا لها نبينا سليمان عليه الصلاة والسلام ليبلوني أشكر أم أكفر إلهي سبحانه وتعالى نعمكم وإله قلي أبو قرطويدان يملك ويسيب وحو أغيى إن أنكو قرطو إن أنكو قرنين سعد لا دول عليال والله إلهي سبحانه وتعالى نعم قال ونسيوي هذا مركو صلى الله طفيل مع عمرو الدوسي سحابي دليل كأ إسلام نماذج إني معنا مركو دحتين بضي وخير كأركي وسهام واي إنه سجنا واحد سيدوقه والله وحلم التهي أدوق ما أنت بريس يهلب يعنتمارت أدوق قيمة بدن هرتاض يتعلق أدعوني يسد قف كان الوقت هذا كباهية قف كإيمانك يدرين كله وحمركب كوسو دعيو أما أدرين كسيريا إنه قف كيركاي لعن لأنه وحو أركي مركو صقري إله الله سجودي السلام يوحنا قولين وأنا قيمة لهين وأنا محنا كل سنين أي مركو روح كرهادني وين السفر صقري لكن ما أنت وحوها لي فره دبتها جناد اللي قفرني أيوه له قاعد سوقلي حير يا رسول الله يعلي اللابتو تلقي يا قرابة كل لابتو سان النقد الداعي تتك خيرك أويره إلهي سبحانه وتعالى كحره
النبي عليه الصلاة والسلام وكأقبلي وقلاضي بل وأدعي صلوات الله وسلامه عليه وحكير يا رسول الله وحن كعد صنيا مرة دعوة إدريس ذاتك أن كايمت أنا آية علامة وطن إنا كل لابط ونبقى النبي تقع ما توحي اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إله يوم آية أما علامة سي ضفيل من عمرو الدوسي ونقطه كالمو أما قاشان أما وحو عقصده ومد أورطه مركو ويماذا ويراهده إلهي سبحانه وتعالى أذنكم إذن صدري أنا رسولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدريه بل أنا النبي ميه لكن رسولك وكيل كاهن نيابة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام النبي محمد أيان معرض النائب كاهي والدين تيسا أيان في ذنيا هذا وصاكو أن دعوني أمد أتكبير النبي عليه الصلاة والسلام ساسون أوليمت ضفائل عمر الدوسي مركو أصوى قلي على مد مرك إلهي سبحانه وتعالى وأسي دعاء النبي والله أقبلي magaalada markuu soo galay meel dalacaad soo sareyso oo saan looga hoobanayo oo jira saan loo fulayo markuu faraski saa soo fulo oo soo hoobanay ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala labadiisa foolka hore martay indhaha dhaxdooda wuxuu ka dhigay nuur ka ifayo nuurkaas oo waliba sida ma aragtay misbaaxa ama faynusto kale halka ma aragtay uga burburqayso Dufayl Mu'amr ad-Dawsi arinta markuu arkay waa urgax asaga baa yaabay ducadana ilaahay ka codsaday nabigiisana ma aragtay u mariyay inuu ilaahay weydiisto Dufayl hada ilaahay wala hadlo إلهي لأن مركو النبي يبر إلهي لكن مركو أصلا إلهي أسبرت إلهي وقعمه وهرصدي إلهي وصلها أدونك يضوي بري وانك أجيب يا رب وحير وحكا عطسنا إن نور كماش هنكسو بحيو إن أدي ورجس وملك لك كدكت محايا النور كاس وحديع كريس إن أمد ليان إن ما دام الدين تود أنك بحي إن معجسك مصيبك كله يبلايو يقصو ظاهرتي يقم موقتي إن أوقاتان بالغيابا يا ربي وحنكو دي سنة يقبدل وملك لك ورجي إلهي وكأجيب الدعاديس فاستجاب له ربي وكأجيبي نورك ولا قصة وريجي وحال الشقا وش مارت أما شابوقي وفرسكيسي أي كسو مارت إلهي ويفيي ومركو بورت كسو داعي أما كسو داعي أما كسو هوبني وحلا صاغو افتيمي سيدا مارت مطر مكسك أما فانوستا وين وصاص وبالغني ومدى مركا أكام فرس يقف نل وحوين ساس وش مارت وبالغني ويكون قرصة معجسو آيات يا علامات أي أركيان طفيل مع عمرو الدوسي مركي وتاول يمت اسم مركي بالدعوه وحو كبلاوي اهلكيس الهي واسيلها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا دينتا دك الهي ايمانك وغليو waxaad ka bilowdaan naftiina islaamka markaad adiga naftaada ku dhaqdid ehelkaaga carruurtaada waa inaad u geys inta ku dhashay aqrabada ku dhaweyd isla markii wuxuu ka bilaabay ehelkiisi aabihi is arkay markaa أبي مركو صاغو صهر مري حكوري يا أبت أبيه لست مارتي عليك عني إنك العلي أما إنك الجوجي عدو مدمتي أنا عدك من ميه وحانك كحي إسلامك نوكل كحي بكيري كلمات لأن مركز إسلامك أسرع تاقاته وكعصبة ضفيل عمر الدوسي وهذا لك سعاد مركا أوكاكية أبيه مركو حكوري أبو ديني ودينك دين تيدا ودين تادا حقا نوكل ودا وحا عدك عابدت أما عد أمن سنتهي يعني أنا كل آمن سنة أبي كل سعودي الواحد قاطعني أنا قاطيه إسلام بانا هاي إلى مكاس الأب وبحث سوق بيسو ماشي أبي شهادة ولا قني التوحيد شهادتين كنا ماشي أبو قبطي إسلام مركز الحاسك كيسي ويمت مركز إليك عني نوكلك حق يجوك مارت لست منك ولست مني أدونا مارت يمدمتي أنك مدمي هي وحنك لك إسلامك خيرك ولا لي أدونا قالت هاي أنا مسلم بانا هاي إسلامك بان قاطي ما أنت وحكدم بين مشركات بعد وتهاي أنا مؤمن بأن الله كحرا ومسلمة أسلمت يا رب العالمين من كلمات كاير كتري بأبي أنت وأم أبي هو يدم كفرتي سو نينكي قمت سو مارت سيدكي حاجكي قمتي أو ولي مارتنين رجع مارتن وحديري هاي أم سلي هاي وأبوانه وسوغاني هنا ووح عريو ولي وح حن وح في عن كريه قانو واحد قاطان كلا قاطي هنا كلا كحين بيتري مركز رواية دقاجي وسوق قبيسو وأنشاده كو قبته ولي وحو كسيري dadka meelaysan ka meesha waa baadiyo dadku masquulahan maanta aanay sanamahaysan wuxuu yiri maadaama aad gabar muslimada noqotay ilaahay subhanahu wa ta'ala diisa qaadanaysid waxaad ku soo qabaysataa meel umada ka baxsan oo maarta sanamkii diishira aha agtiisa meel ah kas ku soo qabayso gabadhi marka diishira ma sanamkii diishira aha oo diishira maxaad ahayd sanam meel maarta biyo ay fadhiyaan wali buur biyahana kor ka soo hobtaan maarta farqay ayaa marka sanam meeshan u yaala
markaas inta haddaan u dhawaado meesha kusoo qabaysto carruurtanada musiibo ku dhacaysaa caqiidadaas faasiska la aaminsaneyd markaasuu xanaaqay tabal adiga maartay dishada balaayo ku dhacday hoogte bax oo hadalkayga dhagayso gabadhi meesha uu canaantay meesha bay gabadhi soo baxday iyadoo yaaban meesha bay kusoo qabaysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala maartay wuxuu gabadhin waafajiyey inay islaamka iyo tawxiidka iyo khayrka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda ku sharax afaman sharaxa allahu sadrahu lislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih فويل القاسية قلوبهم إلهي سبحانه وتعالى حليه فمن شرح الله صدره الإسلام قف إله أشرحه إسلامك يا خيرك وهي كده انتهي قف إله قلبه نور قليل أفمن كان مارتي قف نول يقف دنتي أي لما دي قف إلهي سبحانه وتعالى خيرك وافجي قف دنتي أو مارتي حبانا كسر سعلين يقف نول أو إلهي سبحانه وتعالى لأن قفك وحكسر بحيا من الظلمات مقديار وكسر بحيا إلى النور نور بقليا وهي كتسلسل مركب فريق في الجنة يا فريق في السعير وفريق في السعير بان كوضاي ودنا جنة جينيسا هاي ويغان ودنا نار بي كخينيسا تي جنة ما انت عقت سار قفكان الدنيا اخر markaas badbaadaya gabadha markay aydan islaamka qaatay okay wuxuu isiri maanta eelkaaga iyo carruurtaadii aabaha oo kula qaateen maxaa laga doonaya xagga ay u dhaqaaqo ummadii kale wuxuu soo aaday magaaladii dadkii uu maartay dacwada ku bilaabay asagoo daaciya waman ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين أسوق داعية ومدنا وباقي إله الدين تسأني قاتان أو أسلامت يقرن كان يكسر بحان إله عبادة مضن إن لو عليه عركب بلا ترك تاجي عركب بلوج أول الرنجيرين إله تاجي سبحانه وتعالى عبادة مضن يكور قبو وحول بو قلب هذا كجره يلا بوقف مركي كل مان الله سبحانه وتعالى صدحيه عبادة لو عليه سكسبهاته إسلام مركبة ضدك مركو الدعوة الله سوق علي دين تو كعص بيت ولو دغولي دغ جرق لو مسيد بل ولا نعس با مارته لو اركي نين مارته اسك راعي نين ما شاء الله لو اركي لكن بفضل الله وبرحمته قفك ugu horeey fikirka la fahmay aba hurayra radiyallahu ta'ala anhu ayuha abdulrahman bin sakh cid kala soo raacdo ma lahayn meesha markuu ku caajisay oo arkay in dacwadii aysan soconayn oo khayrku soconayn dadkuna asnaam iyo qurun iyo waxa la aqoonin ay ku xiran yihiin ayuu nabiga kaleey salaatu salaam ku soo laabtay nabiga عليه الصلاة والسلام أيو كسر لابت مركز سكر يا رسول الله مركز يمد مقعد ما كسر لابتني بحويري ما وراك يا ضفيل يا وضايق ولا صعد مركز هذا الحكوع جواب أدب وكان حويري يا رسول الله وحن كلمة أهل الدوس قلوب عليها كنة وكفر مارتي فسق قلب أتكاضي وأنجي يفاسق نمو يعسيان يإله لو كفريو يوحنا لا قولن يذي شر السلام اللي يراهدو يذي الكفين من اللي يراهدو انت بيكون دغينين ما انت كوا خير كما صعد نبي مركو انت كدغيستي وبحي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سو ويسيستي مركو سو ويسيستي اي والله بركع واستاغي مركو صلاه كبخي فرفع يديه الى السماء لبد قعود بالله وهرسدي halka waxa taagna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu oo markaas soo islaamay nabiga asaga aqoon badan isku malaha asaga cusub markuu arkay nabiga gacmaha horsaday uu Allah ilaahay waa qawmaa kul dhawaaqay oo nid ka yiri waxa isoo yiri wallahi maanta tolkayga maanta baabay gacmaha ilaahay loo horsaday wala halaagaya oo wuxuu maqni jiray nabi nuux qoomkiisa wala halaagay qoom thamud wala halaagay ambiyada ba ilaahay u baraday والله مرتي والله فرت ساري والول يا ولع بلاضي لكن النبي ما هي النبي عليه الصلاة والسلام ما هي النبي عليه الصلاة والسلام قف أمده هبار ورصب بنبحه قف إله سبحانه وتعالى أمده أودي عذاب إنه كسر دجيه ما هين والنبي مركب وحب الله رؤوف الرحيم بوهاي وحب الله إنه يراد اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا 3 مرات إله يو رود دوس هنوني وحق وافجي oo quranka iyo balaayada ku jiraan rabbiyo ka soo bixi oo wanaagga iyo khayrka u soo bixiyo nabi kaleey salaatu wasalaam ahlu daws ugu ducay Dufayl ibn Amr ad-Dawsi ayuu nabigu u soo jeestay markaas uu kiriya Dufayl taala kaalay wala tabaraya laana markuu nabiga xawaasha ka qaaday ee uu wareystay wuxuu ka dareemay hadalka kan inuu leeyahay ilayka anni noo kala kaxay diinta ana kala kaxaysay adigu saan baa tahay adigu gaal baa tahay anigu muslim baan ahay iyo hadalka kan buu ka dareemay nabi kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu ku yiri irji ila qawmik tolka kulaaba warfiq bihim udimri oo ujilci oo udci ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana dadku waxa ugu yartaa si xikmadaysan maw'ido wanaagsan bas iyo ala basiratin ilmina ku dhisan oo qofka ku soo jeedin kartid walaal halka misaal marka aan ka bixiyo
waxa dhici karayso gabar walaasha ama wiil walaalka inuu salaad galab ka yahay adigana isku ka toostay khayrku maarta ilaahay ku dilaaciye ha ku jeejeesin hana ku xumaynin bal u ducee u fakir hadalka u jilci hore baan u soo sheegay ilaahay subhanahu wa ta'ala fir'aun oo rabbina sheegtay oo faxashara fanada faqala ana rabbukum al'ala dadka intuu ka dhax istaagay yiri ana maarta rabbiga ugu sareeyo adduunka ilaahay wuxuu leeyahay markii maartay nabiyina Muusa wa Haarun ee u tagay aqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha hadal jilicsan oo maarta u dhimriya waxa dhici karayso inuu khushuuco ama uu ku qabo maarta hadalkaas uu qalbigiisa wax ka bedelo ilaahay waa ogaa inuu fir'aun hanuunayn islaamayn laakiin tababar iyo tusmo iyo tusaalo ay wuxuu ahayd in ambiyada lagu tababaro annakana hadalkaas ma aha sheeka xariir ma ahe qissata wa qisas ibratan liul albab ibratan liul absar ibratan ma dadka ibradu waxa waa kuwa afala tadhakkarun wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas la'allahum yatafakkarun waxa soo miitay wax u soo qaatay in ummadu ku tusaale qaadato ummadu wax kala baxdo macna ka qaato faa'iido ka qaato hadda taariikhdan ka sheekayna asxaabta nabiga kaleey salaatu wasalaam sheeka xirnaga ma aha bal ujeedku wuxuu yahay markuu qofka dhageysto inuu macaani ka qaato maxaa ka faa'iido yiraahdo wax ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado cibaadada wax ma iska bedelay saas ayuu maartay qofka la rabo inuu mar walba hadafkiisa ama ujeedkiisa u ahaado isla markaan u soo laabno Dufayl Amr ad-Dawsi walaalayaal markii uu nabiga diray salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa uu ka saxay tasxiix al-akhtaa'di igafafkii markaas uu dacwada ku waday ayaa maartay laga bixiyay oo laga maartay waa la maartay la shaandheeyay wixii ka qasnaa waxaan laga dhigay qof u tababaran u carbiyeysan dacwada ilaahay subhanahu wa ta'ala Dufayl Amr ad-Dawsi waa uu laabtay tasawwur bal suurayso wax aad cajiib ah islaamku in la dadka la laayo iyo in dadka dacwada loogu yeero teewa marka horeyso halkaana fiqiga laga qaadanaya wuxuu leeyahay Dufayl Amr ad-Dawsi nabigan ka tagay waxaan ku laabtay reer Daws illa uu nabiga magaalada ka soo hijroodo Makka uu soo aad Makka ka soo hijroodo uu Madiina yimaado intaas waan kala maqnayn dagaalkii Badr oo sanadada waa dhaaf Uhud tisdaxad waa dhaaf Khandaq dagaalkii maartay sanada shanaad aydan waa dhaaf illa wuxuu yimid dagaalkii duulaankii Khaybar buu yimid oo sanadii toddobaad ah waliba nabiga xali maalinkaas axogaa isdul istaajiye nabiga farxadan baa isku yimid Khaybar waxa isku timid salawaatullaahi wa salaamu alayhi Dufayl ibn Amr ad-Dawsi oo reer Daws ay soo raaceen 8 dhowr qof 8 iyo dhowr qoys leh famil oo isku xiran iyo waxa nabiga u yimid alayhi salaatu wa salaam Abu Musa al-Ash'ari oo reer ash'ariintii wado iyo waxa nabiga isku yimid ardu Habasha oo Jaafar ibn Talib asxaabtii uu hogaaminay oo ka soo laabteen iyo furashadii Khaybar nabiga maalinkaas marka maalin farxad badan bay u hayd salawaatullaahi wa salaamu alayhi marka Dufayl Amr ad-Dawsi markii uu duuladaas dhan bay dhaafeen sanadii toddobaad ay hijriyada ee Khaybar buu nabiga arkeen asagoo leh waxaan la imid 8 iyo dhowr qoys oo khayr iyo iimaan iyo nuur ala nuur oo qalbigooda ka buuxo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrku waafajiyo bal ku sugnaa islaamka meeshii markaan imid nabiga aad buu uga farxuuyay Dufayl Amr ad-Dawsi hatta nabiga intuu ka dhimanay waa ag joogay bal fatxu Makka wuxuu ahaa raggii markaas nabiga ag taagnaa oo la joogay markuu nabiga kaleey magaalada Makka uu soo galay halkan waan isdul saajina walaalayaal nabiga kaleey salaatu wa salaam 13 sano waa 13 sana ayuu magaalada Makka ku weydiiyokum aqim salaat inuu dagaal qaadin uu salaad tukado dadkii asnaamta ku jiru la hadlay bal ka waran haduu asnaamta burburin lahaa waxa dhici karaysa in ummadda ku duusho qofka waxa uu aaminsan yahay marka hore laga ma tirtiri karo illa qalbigiisa iyo aqoonsiisa la dhiso 13 sano nabiga kaleey salaatu wa salaam asxaabta nabiga ka dhisayay qalbigooda iyo iimaankooda markuu ogaaday ee uu maaragtay uu kuwaana xunna ay ka baxeen qalbigooda iyo shirki ku jiro ka baxay wixii xuma ay ka baxeen ay gaareen heer ahad min as-saxaaba walaalayaal intuu maalin maalmaha kamid Allahu akbar maalin maalmaha kamid wiil dhalinyaro waa wuxuu qaba faraanti dahab nabiga uu yimid markaasuu ku yiri dahabku rag uma xirtaan waa ka xaraan dumarka loogu talagalay ee iska siib saa intuu u qaaday ayuu iska tuuray waa dahab lacag badan ku fadhiyo markaas asxaabta nabiga kaleey salaatu wa salaam meesha joogta ku dhaheen
والنبي وحو كوضي صلوات الله وسلامه عليه دهب كان أما فرقشك كوجو جرو والانتفاعي وأسكال هذا هاي حرشنا الجودي ديه مركز والله وبالله وط إله ما كل عرتي نبي محمد وحو يرس كتر أو أنتور أنا كلها بني بفير إيمانك وماشو قارن هير وحي قارن قبل أيضا حاملة وزنيتي إن يتيرك اسكنت أيضا أوبي صومرين أيضا بوليس صومرين أيضا عند محكمات كين إن اسكنت ترى يا رسول الله صلوات الله وسلام عليه وأن سوز زنيتي وحن ديار وهي إن حكم اللي جوه فيه بل وحاجرت ويلان يراه ومر كمده واسكت اليرو كان يعاكس فتاته قبل بيوضع عيارين ويلون كتاموش ومسي أما أصلا وشمي نبي صلاة عصر ولا جوجا مركز النبي مركز صلاة لا تكذي أيو كسو عر يا رسول الله ما أنت وحن دياره إن حل جوه فيه ومحك ودعي مركز يا رسول الله حيودعي قبل أنا صار كذي محان سميا النبي عليه الصلاة والسلام كويري من لا تكتي صلاة دي عصرات صلاة عصر نعم وإن لا تكذي مركز إلهي سبحانه وتعالى الذنب يا مشي كل عف إلا ما أقم الصلاة لذلك الشمس أيضا مركز أمارتي إلهي يذهب سيئات حسنات أيضا معنا سهيد إلهي كتر ترى حمانه أي ونا كتر ترى إلهي كلها سبحانه وتعالى في معنى الآية نسان كوضا مركز ولا رجال إلهي سبحانه وتعالى أصحابتي من نمح أصود دري إذا ذكر إله أمود أصود دري مركز إيمانكم سدحت مثلا سواد السي أو قلبي جود خير كبوحي النبي عليه الصلاة والسلام إلهنا وصابت أها وقلبي جود قلي وأصلحت مثلا هذا مركز النبي مالك وما كقبل الدعوة وأسلامت بربرين لها ما حد عليه إن أسلامتي ذاتك يولي كفقين أسأل الله دران سلام كوشال كبربري كوا كقرح على صار كوا كقرح بدن كالمارت الحربي إن صباحا لكن صدق يتوصل أي قلب جود مارت كدسي إن أسلام تاني محلة عائشة رضي الله تعالى عنها والله هذه سود قلهيد مالك أقول رئيسي خمرض وحران خمرض وحران هذا مركب سود دعي الهيد هوري لقى مارت ومد كمان مارت تجين بل مالك سود كفوا هذا صارها مركز كل إلا إمارة دي مراحش يسومرت أما إمارة ترتيب يسومرت وتقرن إنسان وجدك حوي ومد مركز هوري إن لو وعديا كجهبون إن قرط لججره إن الله وحكورس إن وعي قليه لو باقه إله لو حره قلب وضل لسه لقاني وضل إله كحرا كذب واحد كربت وتكيل إنسان لكن أمد هذا مرقبستي حديث هذا إنك تكون قراعية قعدتك جونية لقطان جرية ليس إسلام تكمل معه بل وحالو بها إنه مد الله دمريو أو الدعوة لين النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة السكمة ده أولو رمية هاليرادة أيا وحاو معاد بن جبل بأمركم النبي تولسوا تكذا النبي عليه الصلاة والسلام أيوه إيمان جري تركي سنو تجنجري صلاة العشاء أضير دالن أو رمية أو اللي بسافر معتنا نكسر جري أو فرض كي ماشي روحوا دابيس ماشي كحرتي صلاة دي والله تكذي معاد بن جبل وكل يري صلاة دي نينكي صلاة دي مركو تكذي وكل راتي وكجوس وأسكبح ونندالنا كل يسوس كهذا حوجا وربع سوق على مرك ومارت معاد وحوجا ولينك وأساس كلمة يربى مارت معاد كفكتي أو سبق ده قف والبنا هفة اللسان أما مارت وسمبر حنكرة صحابي جل والنبي أدو جعله معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه وأنك كويري يا معاد والله إني لو أحبك نبي محمد معاد وكجعله مرك وزني جاي ميزان كله معاد عد بوسري لكن مقدم كان قفك معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه markuu wax ka fakadeen oo kelmada ka dhacday ninkii markii gaaray meesha waa tuulo dadku ay wareysanayaan ninkii oo careysan ayaa nabi u yimid cali subaxi markaas uu yaa rasuulallah maanta waxaan erga ka ahay ama dacwo ka ahay saaxiibka waa keebu yiri waa mucaad oo maxaa dhacay intuu adigu kula soo tukado oo annaka lulmaysan oo hurdanayso sugayno uu noo yimaado ayuu hadana saacad ugu dheereeyaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal fiiri nabiga xataa waa meesha laga qaato qofkaad ku kalsoon tahay marka laba qof isku imaado oo gar aad u kala qaadis kaad ku kalsoon tahay yaraan karta xoogay adoon cadaalad ka tagayn nabiga intuu caroodo wuxuu yiri ya mucaad afattaan anta ya mucaad afattaan war manfadna wada tahay ummadibad nabiga aad buu caroodo xoogay markuu xudsinaysa ninka uu ka xun yahay uu leeyahay manfadna wada tahay oo muxuu yiri magaxay bash dadka u fudeeya bas bashiru ma dadka u bishaaraya oo wala tunafir ummadda kala firdhina kala ciirina oo ku wala dadkana u yasira oo usri kaga amarta kaga dhigana ee yusri kaga dhiga ayuu lahaa nabi kaleey salaatu wasalaam mucaad ibn jabal radiyallahu ta'ala an markuu arkay nabiga inuu canaanayo nabi maxamed wuxuu salawaatullaahi wa salaamu alayhi qof kaftamo ninkii reemiyo ku salaabtay in adeerkayo adigu maxaa ku tagtay horta
markaas والله أنا إلهي بان وتجنب وديستاوي نارنا وان كمان قلا أنت أصلا صلاة كونتير نبحي وأنا كنا ندندن حولها أنت لازم كده وحال آخرنا لو حيري إلهي بان نار لو ما قلا جنب وديستا نينكو أو قصري وحوله كده نينكي والله اللوجان ما أنت دولان بالجلي وحنا هاي نينكي ماشي بكل شيء دليل نبي ما كاسو كور قص كي كل دول ما أنت كور معاد مدحو يا رسول الله صدق رسول الله نبي محمد ربه الشيء وكذب معاد صاحب كنا كي كلا شهيد كنا ربه ما رتها بير مرة كوضا ولا ليال ونحر كهذا الكويه دلوع أسعد روحي تاي وما ده الوقت كين حتى هذا عرفت ويل كهذا الشيء إنه وحسكين ودمري سود جيدو نبى قبل دي سحاجة يعني سؤال قاطع مركه هرب لو تربيني قبل عن لو تربيني مركه يريد بين حجاب لو حرو أيوة حرة مركه شلت من قارت إلا أب حجاب قاضو ويل مركه يرى على الصلاة لو باللابين أي اللي ورث ما أرت مركه 18 يارت أو تينيج قالوا يعني ورب قصبة يعني صلاة كذا مركه لو تربيني قف كتير لا صلى الله أو المارت صجعن صلاة مركه اللي هي وعنق وعدكوا أمرتان مروا أبنائكم بالسبعة marka carruurta wajiraan marka 10 gaarana ku garaac leeyahay waxay ka dhigan tahay tababar iyo leyl inuu ku soo qaato 7 sano jir 10 sano ilaa cunuga markuu 15 gaaro uu wixii uu la qabsado ay ka mid tahay jirkiisa qayb ka mid ah ee maartay wax la qabsado inay noqdaan hadaa marka u soo laabto saxaabiga daliilka awlaliya Dufayl Amr ad-Dawsi dacwada baasha ka bilaabay markaas uu yaa rasuulullah marka fatx Makka dhacday nabiga wuxuu go'aan ku gaaray انت 360 سنه ee taalay magaalada in la burburiyo baabaha laga dhigo bil xaqiiqa nabiga uu guuleystay markuu ogaaday in asalaamta ma ka taala burburiyo ayuu nabiga la hadlay yaa rasuulullah anigana asalaamta ehludos ku hartay inta baaqi waan qana sanam waxa diyaar dil kafayn sanam liiraahdo dil kafayn oo umad aad ugu xiran yihiin ayuu markaas ogaa Dufayl Amr ad-Dawsi markaas yaa rasuulullah dil kafayn ayaan rabaa inaan shaqo ka qabto ee fasax buu yiri markaas nabi kaleey salaatu wasallam ku yiri haye uu ogolaaday nabi kaleey salaatu wasallam inuu aado sanamkaasna soo burburiyo qisiiro kooban ku jirta marka nabi kaleey salaatu wasallam markii uu diray Dufayl Amr ad-Dawsi inuu sanamka soo burburiyo koox yar maartay asxaab maart kamid ah ragiisa uu ka haystay magaaladu dadkii caruurtii wixii dhamma isku soo shumugay ayagoo yaaban oo leh maanta hadii uu maarad Dufayl Amr ad-Dawsi uu gaarsiiyo dil kafayn wax yar wallahi xidha musiibo ku dhacayso waa maalinka ugu dambeysay waa si aaminsan waa aqeedoodi laakiin saaxibka Dufayl Amr ad-Dawsi waa saxaabi qalbigiisa mutma'innun bil iimaan kibriyaa ul iimaan ba ka buuxo tata'addadu fi fu'ajihi qalbigiisa wax ka soo burqayo iimaan xalaawatu al-amr dami sanam iyo waxaas in wax tari karaan la yanfac wala yadur inuu aaminsan uu yahay loox meel iska yaal soo marka umada u qanciyo sanamkii dil kafayn oo meesh magaalada meel ee umada ka aragto ayuu intuu u keenay oo ag yimid ayuu wuxuu ku yiri horta uu gabiy maxaa soo niri waa gabiya wuxuu yiri gabaygiisi ya dal kafayn lastu min ibadika miladuna aqdaw min miladika inni hashawtu an-nar fi fuadika ya dal kafayn ما صار حاليا لو قعمل إربي كودين أرتو حيل لستو من عبادك كوكو عابدو أنا كمان مهير أنت وحيس إربي ميلادنا أقدم من ميلادك لا شرنا باكوه رئيس مد هذا وحولي أديكو أنا كاوي وعددك مارت أنا كاكو معكو يلا أنا كاكو سميسنا أنا كي كاوينين إلهنا سبحانه وتعالى عصا ومد أبو رأسنا قوين إلهي سبحانه وتعالى أصابوري إلهي عندك وهر بديع السماوات والأرض أصلا إلهي سبحانه مرح يري أنك التاريخ هذا وحب اللعبطي وأمد أنك أقويا للتاريخ وحكاه الرئي وأنك كهر نكوذا إني حشوت النار في فؤادك وحنكو عفي أنكو فينا يا لابت هذا النار وحنا بس كقاعد كرت ووعد نفطر أوتري كرت الملك ماشي أسوي قبي أو مارتي وكله يا ذا الكفين لست من عبادك أسوكو هايو أو ماشي باباك كذا وضبك قبي ضدك ماشي ويا بين سلامك وحبا قموا قصة وحاجرته أنا كاس أنا حكشته إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم ده أول اللي راد إن الحنفلية عمرو بن الجموح له حنفلية سحابي قاس سلام بولها سلام كيسو مركب منات بلده وقروح صدا وحو مرمريا ومشوا الكتاب مركب مصعب بن عمير ومقالة المدينة وحكم بالله بالدعوة وحو مركب إلهي سبب كقال جينا كل إسلامان صدح ويل وضاق علي يحاس كيسي يقول معاد بالجول الجول الجوي أنت هو إسلامي لكن إسلام كذا بقرنا يعني وضاق مركب حيرة إن سلام كاستك قادان خيرك ugu baaqan odayga marka wuxuu sameeyay salaamku quruxsada habeenkii intuu u tago yiraahda ee maartay hadee habeen wanaagsan subax wanaagsan habeenkii marka la seexseexday ay caruurtii salaamkii qaadeen
meel maartay qashinka iyo maartay waxa lagu rido qashin qubka lagu tuuro god oo reer bani salaam lahaayeen ay sanam ku rideen marka habeenkii markuu waaga bari uu subax ilaa subax wanaagsan kayfa asbaxta u dhijri sanamka meesha ma yaal odaygu waa u yaab wuxuu yiri man ya maanta la diray ilaahayna dul yiri ilaahay anaga yaa maanta la diray asoo careysan oo halkaas ku celinayo ayuu saa yiri isla markiiba waa uu waayay waa uu soo baxay meeluu ka barbaaray mise wuxuu arkay sanamkii oo ku dhex jiro godkii ama qashinka meesha lagu riday reer bani salaam odayga marka aad buu caro sanamka ka saaray waa uu tirtiray waa uu wanaajistay meesha uu dhigtay habeenkii labaad ba hadana carruurta qaadeen godkii bay ku rideen aday aad buu caro marka wuxuu yiri waniyahu haddaan ugu yiri qodob waxaan samays wallahi tilaabaan ka qaadi lahaa waxaan ku sameyn lahaa waxaysan ogeyn waxaysan ka soo waqsanin waxaysan ka warqayn ba ku dhici lahaa asoo aad buu caro haddana habeenkii saddexaad waa ka qaadeen marka habeenkii waxay kaga duwan tahay waxay sameeyeen sanamkii iyo ay shalo kala baqtiyay oo meesha la keenay ay isku xireen ayagoo saas ku xiran lugta iskaga xireen waana ka tageen odayga markuu subax soo waabariistay uu leeyahay war maxaa ku waabariday misanka meesha ma yaal maya waxa ka horeysa aan soo yiri iloohay habeenkaas odayga wuxuu sameeyay sanamkii wuxuu u xiray seef buu wuxuu inoo dhageyso dad maartay wax tarays anigu kuma anigu waxaan ku qaadanay oo meesha habeenkii ku dhigayo anigu ma arko yiri seeftan qaado isdifaac idfac nafsaka an sharta lagu hayo dagaalka duulaankan anigu iga qarsoon oo adigu kaliya maartay ku socdo adana u gacan isdifaac markuu soo kacay subax misanka meesha ma yaalo odayga asoo careysan soo baxay mise wuxuu yimi sanamkii iyo maaragtay ay baqtiye isla xiran oo shalo kale meesha odayga tuu caro wuxuu yiri wallahi ilaahay baan ku dhaartay loo kunta ilaahan buu yiri haddaad ilaahay aan lahayd adu iyo maartay ay baqti la subakan xireen naftaada difaaci seeftiidina waa maartay wallahu uu yiri odayga soo yaabano soo tagay markaas wuxuu yimid xaaskiisa Hind ahayd iyo labadii saddexdiisu wiil Mucaad iyo Muawad iyo Khallaad markaas uu yiri aabow iigeey maartay ninkan Mus'ab meesha oday ku islaam waxaan ka wada sanamkaas iyo waxa soo dhan qulubtoodu ay ku jireen ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badbaadi odayga marka Dufayl Amr ad-Dawsi hadaan soo koobo barnaamijka aad buu noogu yaryahay waxa uu ahaa oday diinta marka wax weyn ka qabtay oo markuu nabiga baxay kaleey salaatu wasalaam wuxuu garab istaagay Abu Bakr Siddiq oo dagaaladii maar duulaanka wali ugu horeeyay ee ridada iyo maartay ummadii diinta ka soo horjeeday falaagoodi ee Musalaamatul Kadhaab duulaankii uu ka qayb galay waliba duulaanka markuu ka qayb galay wuu riyooday habeenkii marka dagaalku u dhacayo kale wuu riyooday wuxuu yiri waxaan ku riyooday asxaabtii ula hadlay markiisa meesha fadhiyay wuxuu ku yiri waan riyooday waxaan ku riyooday anigoo hadal cajiib ku riyooday wuxuu yiri waxaan ku riyooday anigoo maartay maartay madaxa lii xiray anigoo madaxa lii xiray shimbirna afkii ka sii baxay islaan haween caloosha gashanayso ee arinta ay turjuma marka wiilkayga maartay Amarna uu raadinayo oo la kala dhaxgalay markaas xalortaan ku turjino arinkaas waa khayr marka ay wax bay arkeen laakiin ma is turjumin wuxuu yiri dhageysta hadaa turjumaysa ana turjumay madaxa lii xiray hadaan ka bilaabo yiri waxay ka dhigan tahay maanta dagaalka waa lagu dilayaa waa saa u maleynayo yiri labo shimbirka afkay ka baxayo ka sii maartay shimbirka afkay ka sii daana ka sii baxaysana waxay la mid tuu yiri ruuxdu iga baxayso islaanta haweeneedu caloosha gashanaysan waa dhulkii lagu aasiyay wiilkayga Amr oo raadinayna waxay ka dhigan tuu yiri asagana shahaado raamuusan heen sidii bay noqotay dagaalkii maartay Yamaama ayuu ku shahiiday wiilkiisana waxa la yiraahdaa asagoo maartay gacantiisa ka go'day wiilkiisa Amr aha maartay asagana gacanta ka go'day dagaalkaas gacanta ku waayay oo qasiir aydan waxay meesha la dhaxgalay oo maartay looga sheekado waqti khilaafada Umar Khadaab radiyallahu ta'ala anhu wiilkii Samaal Umar meel fadhiyo oo cunto loo keenay wiilkii waa u yimid markaas uu arkay marka aad buu soo dhaweysan jiray wiilkiisa maadaama abihi uu aqoon badan u lahaa markaas Samaalka cuntada loo keenay ayuu wiilkii wuxuu arkay is arunay way gacanta midig baa ka go'an dadkuna cuntada midig baa lagu cunaya markaas yiri war Amrow waxaad la caraysaa isla yiri gacanta ka go'an markaas yiri ajal ya amiir al-mu'minin haabu yiri markaas yiri wallahi ilaahay baan ku dhaartay la aduqu hada at-ta'am cuntadan cuni maayo illa gacantaadan go'aad ku dhex walaaqdid illa sa walaaqdid ilaahay baa ka tana cunayn wuxuu tusay wali wuxuu ku yiri ilaahay baan ku dhaartay inta meesha fadhiyo imaan dadka meesha joogu yiri waad ka sharaf baanta waad ka qiimo baanta maxaa yeelay waxa tuu yiri qof jirkiisa qayb kamid oo jannada ku jiro qayb kamid oo adduunka joogo marka asagana wuxuu ku sheedalayada macrakadii Yarmouk ayuu shahaado ku qaatay Dufayl ibn Amr ad-Dawsi libaaxaas islaamka khayr badan gaarsiyoha garaadkaas waha taariikhdiisa ma soo koobi karo laakiin intaas aan bidaaminay insha Allah ta'ala walaal asxaabtana oo ka sheekado dhan sheekooyinkooda waxaan uga daleenahay inaan kala baxno oo duruus iyo cibra ka qaadano marka waxaan kaga tagay insha Allah ta'ala intaas imaarata inaan barnaamij lamada ku kulano wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم